waxaan ummadda Soomaaliya u sheegayaa calankaas u jeedin quruxda badan leh iyo xornimada ay Soomaaliya ku naaloonayso inay u daateen dhiigaas ay u daadiyeen ciidamada qalabka sida isugu jira wiilal iyo gabdho 24 saac ay u taagan yihiin difaaca dalka sharafka isiga karaamada iyo inaan ku noolaano xornimo buuxda ilaa ay haatan u taagan ma haystaan ciidamada qalabka sida mushaaro ma haystaan gunno ma haystaan dawo markay dhaawac noqdaan mana la siiyo magdhow markay ku geeriyoodaan howlgal qaran adigu Soomaali ma tahay miyaysan ka mudnayn mid xigto inaan garab istaagno inaan dhiigeen u shubno inaan u hiilino inaan wax aan haysano wax ka siino waxaan rabaa inaan idin tusiyo ummadayda wiilasha iyo gabdhahan dhalinyarada ka tirsan ciidamada qalabka sida bal waxay ila daawada maxaa ku muuqda dhalinyarada Soomaaliyeed oo hamigoodu uu yahay inay daafacaan dalkii iyo diintii iyo calankii iyo ciidii marka dadka dhalinyarada noocaas oo naftooda u qoray miyaysan mudnayn inaan dhiigeena u shubno hantideena wax ka siino u hiilino afar iyo 20 saac waxay u taagan yihiin waa difaaca dalka gudaha iyo dibadda cadow badan ee ummadda Soomaaliyeed leedahay ciidamada shisheeyaha ma sugi karaan amniga dalka guud ahaan adiguna waa ogtahay ilaahna waa ogyahay u hiili ciidamada qalabka sida